nasiib xumo 1997 bishii November baa nimanka Eritreanka ahaa laba go'aan oo adag ay qaateen oo Ethiopia dhaawac ku ah kan koowaad wuxuu ahaa inay lacag gooniya Eritrea ay samaysatay qodobka labaadna wuxuu ahaa in canshuur ay bixiso iyo taxi laga qaado dawladda Ethiopia marka isticmaalayso dekada Casab kadib waxaa bilaabay marka dagaalkii labaad oo dhex maray Ethiopia iyo Eritrea ilaa 2000 meelahaas u socday 3 sano meelahaas u socday kadib waxaa dhex maray heshiis oo dagaal joojina xabad joojina Ethiopia marka waxay u soo rartay xagga ganacsigeeda dhinacan Djibouti marka dekedeeda isticmaali jirtay waan ognahay ilaa 95% ganacsiga Ethiopia leedahay dekada Djibouti uu ku xiran yahay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada waxaanu joognaa xarunta cilmi baarista ee macadka Bayaan xarunteeda dhexe ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka waxaa marti noo ah gudoomiyaha ahna madaxa xarunta soo dhawo Maxamed Shaciib waa dhawahay mahad aad baan u mahadsantahay adiga iyo ummadda Soomaaliyeedba gudoomiye waxaan rabnaa inaan ka wareysano damaca Ethiopia ee ku aadan badaha Soomaaliya iyo guud ahaan damaca Ethiopia ku aadan inay bad ka hesho geeska Afrika soo dhawo mudane bal si guud damacan goormuu bilowday ilaa imsuu soo jiray damacani bal arintaas in yar back up noogu sameey بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد marka labaad waa mahadsantahay mahad adiga iyo bahda maxadka cilmi baarista iyo injineer Guuleed oo inoo manage gareynaya waxaan kale u mahad celinayaa dadka daawadayaasha ah iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaanba waxaan kale u duceynaynaa walaalahan Falastiin inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhibka ka dulqaado iyo culays ka haysta muslimiinta guud ahaan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u cizeeyo haddaan u soo jeesto su'aashaada ah mahadow damaca Ethiopia ee ku aadan dekadaha dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan dekadaha ay leeyihiin dowladaha dariska la ah ee geeska Afrika waa damac soo jireena oo taariikh dheer leh weligeedba dowladda Ethiopia waxay ku maaragtay haminaysay ama ay raadinaysay inay hesho deegaan badeed dhaca badda cas iyo marinka biyaha oo loo yaqaano Baabil Mandab taariikhdaasna waxay soo jirtaa ilaa 130 sano taariikhyaashu waxay u celiyaan 1887 xilligii boqorkii Menelik uu haystay Ethiopia ayaa wuxuu ahaa duulaankii ugu horeeyay ay ku soo qaadeen maaragtay deegaanada Soomaalida ay leeyihiin watii marka waagaas ay qabsadeen magaalada taariikhiga ahayd oo la dhihi jiray Harar la dhihi jiray kadib buu haddana boqorkaas wuxuu dagaal ku soo qaaday magaaladan Saylac oo badda aydan taariikhiga ah ee xeebta leh laakiin wuu ku fashilmay uuna ku guuldareystay dagaalka noocaasa mar labaad waxaa dagaalkaas soo noolaysiiyey boqorkii la dhihi jiray Haile Selassie dagaalkii labaad adduunka kadib dagaal buu haddana wuxuu ku soo qaaday magaalada Saylac 1964 mar labaad badan dagaalkaas ku fashilmay waxaana la soconaa guud ahaan in Afrika ilaa 3 jeer ay ku soo qaadeen dadkan European-ta la yiraahdo iyo gumeystayaasha dagaal ay ku soo qaadeen ama wax loo yaqaan mawjado ama hirar kala duwan kii koowaad wuxuu ahaa markii Afrika ay gumeysteen oo ay kala qaybsadeen 1886 wixii ka dambeeyay waaga marka Ethiopia waxay cadgoosatay oo la siiyay oo loo xalaaleeyay dhinacan ay Tigreega degaan oo Eritrea dhulka loo yaqaano dagaalkii labaad adduunka markuu dhacay 1945 mar labaad ba Ingiriisku wuxuu u cadgooyay dawladda Ethiopia marka waxa la yiri wax dooro kala dooro dekadaha Saylac marka waxay soo bandhigtay dekadan loo yaqaano Casab loo yaqaano Eritrea ku taala marka dawladda Ingiriiska ahayd waxay tiri labadaas meel isku qaadan kartid mid dooro marka waxay go'aansatay inay qaadato dhinacan Eritrea iyo dekedan Casab loo yaqaan halkaas marka dawladda Ethiopia waxay u isticmaali jirtay ka dekad ahaan laakiin ka bilow 70-yadii dagaal baa waxa dhex dhacay xukuumadda dhexe ee federaalka Ethiopia iyo qowmiyaddan degta Eritrea dagaalkaas ilaa wuxuu socday 30 sano 1993 bishii Abriil
aftiba waxa loo qaaday qowmiyaddan Eritrea degta inay ka go'aan dowladda dhexe Ethiopia iyo inay xubin ka ahaadaan dowladda dhexe Ethiopia shacabku marka waxay isla qaateen inay madax banaani qaataan bishii marka Abriil baa la qabtay aftida 1993 bishii May oo 1993 Eritrea dowlad baa loogu dhawaaqay dowladda Ethiopia dhaxana way ictiraaftay markaas afar wax baa lagu heshiiyey mahadow oo muhiim ahaa kow in heshiisyo ganacsi ay dhex maro Ethiopia iyo Eritrea qodobka labaad in Eritrea ay si isticmaasho lacagta Ethiopia lacag ahaan u isticmaasho qodobka saddexaad oo muhiimka ah wuxuu ahaa shirkadaha Ethiopia ay leedahay inay open u ahaato u furnaato inay Eritrea dhexdeeda ay ka shaqeeyaan qodobka ugu muhiimsanaana wuxuu ahaa dowladda Ethiopia in dekada casab oo Eritrea ku dhex taala ay for free uga soo degaan ganacsigeeda ugana dhoofiso una soo dejisto taasaa marka 93 ilaa 1997 lagu shaqeynayay nasiib xumo 1997 bishii November baa nimanka Eritreanka ahaa laba go'aan oo adag ay qaateen oo Ethiopia dhaawac ku ah kan koowaad wuxuu ahaa inay lacag gooniya Eritrea ay samaysatay qodobka labaadna wuxuu ahaa in canshuur ay bixiso iyo taxi laga qaado dowladda Ethiopia markay isticmaalayso dekada casab kadib waxa bilaabay marka dagaalkii labaad oo dhex maray Ethiopia iyo Eritrea ilaa 2000 meelahaas u socday 3 sano meelahaas u socday kadib waxa dhex maray heshiis oo dagaal joojina xabad joojina Ethiopia marka waxay u soo rartay xagga ganacsigeeda dhinacan Djibouti marka dekadeeda isticmaali jirtay waan ognahay ilaa 95% ganacsiga Ethiopia leedahay dekada Djibouti uu ku xiran yahay haddii dhinaca kale ka hadso mahadow dowladda Ethiopia waa dowlad waxay noqotay xiran ama loo yaqaano dowlad xabiisa dowlad aanan lahayn wax dekada dowladahaas marka caalamku waa 44 dowladood oo aanan lahayn wax dekada oo ku dhex yaala dowlado dhul ah ku dhex yaala oo dekada leh bay dhexda ugu dhex jirtaa Afrika 16 dowladood baan lahayn dekado Ethiopia marka way ka mid tahay laakiin dowladahaas 44 ah iyo kuwa Afrikaanka oo 16 ah waxay dheer tahay dowladda Ethiopia inay tahay dowladda ugu weyn xagga populationka iyo dadka oo aanan lahayn dekad waa 110 milyan oo qof way Ethiopia waa dowladda marka adduunka ugu weyn oo aanan lahayn wax dekada lahayn haddana waxaan la soconnaa Ethiopia inay tahay dowlad oo regional ahaan power ah waa dowlad marka Afrika markii la yiraahdo power Afrika afar power bay leedahay mahadow afar awoodood dhinaca marka fiirisid waqooyiga Afrika haddaan shaashada ku noqono waqooyiga Afrika waxa ku yaala Egypt halkaas Egypt saaran tahay halkaas saaran tahay Egypt waa awoodda military ugu weyn Afrika dhinaca northka ku taala dhinaca marka fiirisid waqooyiga Nigeria baa waxay tahay awoodda ugu weyn oo Afrika dhinaca marka fiirisid bariga Ethiopia ugu culus dhinaca marka fiirisid koonfurna South Africa ugu weyn afartaas awoodood bay Afrika leedahay haday noqoto marka xaq dhaqaalo Nigeria ugu weyn xaq dhismo iyo infrastructure iyo horumar South Africa ugu weyn xaq military Qaahira ugu weyn waa wadanka adduunka 13aad Ethiopia xaq population ahaan iyo xaq diblomaasiyad iyo xaq siyaasadeed bay ugu culus tahay midowga Afrika bay waxa u tahay base u tahay xarun u tahay bangiga dhexe Afrika ku yaala halkaas laga maamulaa Afrika xagga siyaasad ahaan iyo political ahaan dhaqaale ahaan iyana waxa laga maamulaa iyo gas Nigeria military ahaanna Egypt waa laga maamulaa xagga infrastructure iyo horumarka iyo maaragtay developmentigana South Africa laga maamulaa marka dowladahaas dhan waxay leeyihiin baday leeyihiin laakiin Ethiopia ma lahan bad waana regional power intaas marka aad fiirisid waxay ku jirtaa xabsi wax amoodid oo kaleeto qodobka labaad muhiimka ah mahada waxa weeye Ethiopia sanadkiiba waxay soo dhoofsataa iyada wax gaaraya 13 bilyan oo dollar bay adduunka ka soo gadataa badday marka soo maraan Djibouti way ka soo gashaa marka waa 13 bilyan oo dollar ayadana
waxay samaysato warshadaheeda iyo beeraheeda iyo xoolaheeda iyana waxay dhoofisaa $3 bilyan lacag u dhiganta marka waxay marsiisaa Jabuuti ay marsiisaa tii marka dekedda Jabuuti u gaarto waxay u baahan tahay tareemo iyo wado oo sariic ah oo highway u baahan tahay infrastructure logistic dhaqaale badan baa halkaas ka gala marka taariikh ahaan marka fiirisid iyo awood ahaan waxa weeye mushkiladu waxay ka jirtaa dawladda Itoobiya awood dhaqaalana leh awood bulshana leh rabta inay noqoto regional power haddana maxbuus oo xiran dhinacana ay kaga dhagan tahay dawlado ka yaryar ayada oo Jabuuti iyo Eritrea iyo Soomaaliya oo xeebaha Afrika ugu waaweyn iska leh